howlgalkan oo isagu qayb ka ah howlgallada lagu xoojinayo la dagaalanka argagixisada iyo ka hortagga ganacsiga ee isticmaalka maandooriyaha khamriga ayaa waxaa xalay ciidamada nabad sugidda iyo booliisku ay si wada jir ugu sameeyeen qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Gaalkacyo ee Galmudug. howlgalkan ayaa intuu socday waxa ciidamadu ay ku soo qabteen shakhsiyaad ka howlana ka ganacsiga kala gudbinta maandooriyaha khamriga kuwaasi oo haatan gacanta ay ku hayaan laamaha amnigu. taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug ee Galmudug gaashaanle dhexe Qaasim Shirdoon Cali ayaana warbaahinta qaranka la hadlay intii uu socday howlgalkan isagoo sharaxaad ka bixiyay howlgalkan iyo waxyaabihii ciidamadu ay ku soo qabteen isagoo dhanka kalena sheegay in aan laga hari doonin cid kasta oo iyagu lagu tuhunsan yahay inay qayb ka tahay falalka amni darrada ee ka jira magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. howlgalkii baryahan aan ka wadnay magaalada Gaalkacyo oo ay wadeen ciidamada amniga ciidanka booliiska iyo ciidanka nabad sugidda oo si wada jir oo howlgalahayay oo howlgal aad iyo aad u laxad ka wada magaalada Gaalkacyo baryahan waxaan ku guuleysanay inaan soo qabanno maandooriye aad u fara badan oo ka mid yahay qamriga oo ay ka mid tahay qaybtan hadda horteena taalla iyo ninkii watay oo hadda aan ku hayno iyo qamri kale oo fara badan oo isaguna aan qabanay. ilaahay baa mahad iskale. waxaan wadi doonaa howlgalkaas ilaa aan ka cirib tirno maandooriyaha iyo qamriga lagu waxyeeleynayo amniga iyo dadweynaha. marka waan wadi doonaa haddii ilaahay yiraahdo howlgalka ciidanka amniga wuxuu u taagan yahay 24 saac ilaalinta nafta iyo maalka dadweynaha iyo sharafta deegaanka waxa weeye qamrigan aad u jeedaan magaalada ayuu ku soo batay. annagana 24 saac waxaan u taaganahay inaan wax ka qabanno. hadda qamriga ugu badnaa baan qabanay waxa ka mid ah midka hadda horteeda yaalla iyo ninkii watay oo hadda aan ku soo qabanay. waana sii wada doonaa haddii ilaahay yiraahdo howlgalka maandooriyaha lagu hortagayo. howlgalkan ayaa isagu ku soo beegmaya iyadoo si wada jira ciidamada dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ay mararka qaar meelaha ka tirsan magaalada Gaalkacyo uga sameeyaan howlgallo lagu burburinayo shabakadaha ka ganacsada maandooriyaha khamriga iyo sidoo kale kooxaha xagjirka ee argagixisada Al-Shabaab.